wasiirka caafimaadka dalkani Kenya aadan ducaale ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah hogaamiyaasha ururada shaqaalaha in ay abaabulaan mudaharaadyo ay ka qayb galaan dad aan ka tirsaneyn shaqaalaha caafimaadka dalkani Kenya isagoo sheegay in mudaharaadyadii dhawaan ka dhacay afafka hore aqalka Afia House ay wadeen dad u rogay shaqaalaha caafimaadka ee sharafta leh ciyaar dana gaar ah markaasi lagu raadinayo wasiir ducaale oo mar xalay tawareysi mid kamid warbaahinada dalka ayaa waxa uu shaki galiyay sharciyada mudaharaadyadii dhawaan lagu sheegay in ay ku saabsan yihiin khilaafka ka dhex jira waaxda caafimaadka sida uu sheegay wasiir ducaale mudaharadyadan ay muujiyeen ururada ma ahayn kuwa dhaba maadaama dad aan la magacaabin ay ku dhex jireen si ay u carqaladeeyaan nidaamka caafimaadka ee dalkani Kenya wasiir ducaale waxa uu sheegay in shaqaalaha caafimaadka aan loo adeegsan karin dana gaar ah because this is going to affect the other clinicians working at the county government. So the two levels of governments must work together. As I sign, I must also consult the Council of Governors. Health is devolved. So, you know, if you saw the people who were there today, they were barely about 50 people. And one thing I have seen in Afia House is that majority of the people who come to demonstrate, and I'll say it without any fear of contradiction, in fact, are not healthcare workers. So leaders are turning a very noble healthcare workforce in our country, where we want to put them and put them fit for purpose at the right level. They want to turn it into their own games. Even some of the previous ones. I mean, you know, some are not genuine, and I can tell you without any fear of contradiction. And that's why since I went, healthcare workers ask the doctors union, ask the UHC staff, ask the other leadership, ask the whole sector now has stabilized. But there are people who want to earn their living by using the healthcare workers in our country who are doing amazing work. Without healthcare workers, UHC and Taifa Care and universal health coverage will not be achieved, but they should not use the healthcare workers as bogey. wasiirka caafimaadka dalkani Kenya isagoo difaacay waxqabadkiisa tan iyo marka uu xafiiska la wareegay ayuu sheegay in uu xaliyay khilaafaad waaweyn oo muddo jiray oo dawladda iyo sidoo kale shaqaalaha caafimaadka ka dhac jiray hadalka wasiir ducaale ayaa ku soo beegmaya kadib markii ururada shaqaalaha caafimaadka dalkani Kenya ee loo soo gaabiyay kuusu ay ku goodiyeen inay bilaabi doonaan shaqo joojin qaran 23 December aynu ku guda jirno kadib markii ay dhacday muddadii 22 maalmood ee ogeysiiska ay siiyeen wasaaradda caafimaadka ururka kuusu ayaa mudaharaad nabadeed kaga soo baxay Green Park ilaa iyo aqalka Afia House iyagoo ku eedeeyay wasiir ducaale inuu diiday saxiixa heshiiska shaqo ku laabashada kaas oo ay sheegeen inuu dhaqaajin lahaa qorshaha lagu gelinayo shaqaalaha xaalad joogto ah oo mushaar iyo gunnaba ay leeyihiin sida uu xusayba xogyaha guud ee kuuso Peterson Wachira dawladda wali kama aysan jawaabin qodobadii muhiimka ah ee ku jiray heshiiska shaqo ku laabashada 2024 oo ay ku jiraan dalacsiinta dhaqaatirinta qaar magac bedelida shaqaalaha mushaar kordhinta iyo sidoo kale bedelida shaqaalaha caafimaad ee shaqo joogto ah iyo mushaar howlgable